saaka oo khamiisa shirkan jaraa'id waxaan u qabanay waxa weeyaan dhul ay dadweynuhu lahaayeen oo ku yaala magaalada Boorame gobolka Awdal oo dawladdii kulmiye silaya madaxda ka ahaa ay ka iibisay dad shacbiga dhulkaasi iyaga maalin hore aan qabtay waxaan halkan ka sheegayay in ay guurayaan oo aad moodo dawladda kulmiye ee uu garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo madaxweynuhu waxaad moodaa in aanay ku talagelin in looga dambeeyo talada waddanka Somaliland waxaan saaka shirkan jaraa'id kaga hadlaynaa arrin bulshadu ay aad uga qaylisay oo ah wasiirkii howlaha guud oo maalin dhaweyd booqasho ku yimid gobolka oo imaatii ku yimiday arrin hore loo dareensanaa oo marka hore dadweynaha been loo sheegay oo aanu ka hadalay oo la yiri dhulka lama iibinayo inay soo baxday inuu maalin waxaan dhaafsanay isagoo joogay warqad Greeta u qoro niman ganacsatada isagoo mulkiga ku wareejinaya waxaan u maleynayaa dadweynaha reer Boorama wixii sharci darro way iska difaaci karaan iyagoo noolna waxa laga qaadan maayo arrinkaana waxaan ugu baaqayaa dadweynaha reer Boorame inay mudaharaadka hortagaan